Lesson 49. The End of a Dream. First listen and then answer the question. How did the dream end? Tired of sleeping on the floor, a young man in Tehran saved up for years to buy a real bed. Tired of sleeping on the floor. Wajif xumada dhulka ee saaxadda kore. A young man waa nin dhalinyaro ah in Tehran lagu magacaabo saved up waxa uu keedinaya for years waa sanado to buy si uu iibsado a real bed waa sariir fiican. For the first time waqtigii ugu horeysay in his life ee noloshiisa he became waxa uu noqday the proud owner waa milkiilo ku faana oo leh of a bed waa sariir which had springs taasoo ay lahayd moolmoolo which had springs taasoo ay lahayd moolo anda iyo a mattress waa jooradii because maxaa yeelay the weather waa jawiga was very hot waxa waa mid aad u kulul. He carried wuxuu usoo sitay ama usoo qaatay the bed waa sariirta onto the roof waa saqafka of his house ee gurigiisa. He slept wuxuu u jiiftay very well si aad u wanaagsan for the first 2 nights waa labadii haween ugu horeysay. But laakiin on the third night waa haweenkii saddexaad a storm waa duufaan blew up ayaa soo afuuftay. A gust waa xanfar ama duufaan of wind ee daweel isababta ayaa soo xaaqday the bed waa sariirta of the roof ee saqafka anda iyo senti waxaan usoo dirtay crashing asigoo ku dhacay into the courtyard waa meel barxad ah ama meel ay jabigeeda degan tahay blew ee ka hooseeya gurigiisa. The young man waa nin dhalinyarka ahaa did not wake up ma uusan kicin until ilaa iyo the bed waa sariirta had strike ay kaga dhufato the ground oo dhulka. Although inkastoo the bed waa sariirta was smashed ay u burburtay to pieces waa gabal the man waa ninke was miraculously wuxuu ahaa miraculously si cajiib ah unhurt aan u dhaawacmin. When goortii he woke up uu soo kacay he was wuxuu ahaa still weli on the mattress mid yacni jooridiisa dul saaran glancing markuu milicsaday at the bits waa qayb of food ee alwaaxa anda iyo metal waa bir taasoo lii ay taalay around him waa asiga reerihiisa. The man waa ninka sadly si murugo leh picked up wuxuu soo qaaday the mattress waa jooridiisa anda iyo carried it wuxuun usoo siday into his house oo gurigiisa. After kadib he had put it wuxuu dhigay on the floor waa saqafka korkiisa. He asiga promptly si degdeg ah went wuxuu soo aaday to sleep si u seexdo again waa mar kale.